السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دhowaad asxaabteydii waa mar kale iyo video kale xamaasadiisa wata waxaa maanta martino ama nala jooga walaalaha u jeedaan niga bilaabo DJ Hani oo garanaysaan oo wajigiisu maanta nigu horeyn sidoo kale Macalin Cabdillaahi oo isaguna aad hore soo aragteen ama aad arki doontiin waqtiyada dambe alfanaan Keenan oo isaguna barashayniga baanani kanti aad ogtiin oo isagu meesha maamula oo mas'uulka dhanay wax kala wada sidoo kale Macalin Cabdillaahi gadaal baan niga shoogi doonaa meelo ka soo gali doono iyo meelaha laga helo inkan waxaan rajaynaynaa inaad naga soo habeysaan nagu ceebayn barnaamijkeena ku socono barnaamijkeena maanta wuxuu u dhigan yahay sida tan mamaha ayaan weydiinaynaa walaalaha mamahaas waxay noqon doonaan kuwa aad hore u maqasheen ama kuwa nagu cusub siday hadba noqdaanba waxaan weydiini doonaa maxaa goorma la isticmaalaa mamahdani goorma la isticmaalaa macnaha kama rabno mamahda ayaan ku soconayna kadibna waxaan weydiinaynaa goorma la isticmaalaa ay ku haboon tahay taasi waa bilowga barnaamijkeena soo dhawaada Let's go guys. Hey, kusida. okay warka waa ni dhameeyay ninka weyn Ahmed Baasha waa ni dhameeyay warka waa sidoo noo sheegay hadal iskama gaadho war haddaan ugu cusub tahay walaal soo dhaw subscribe ku yunan culays ku noqon like tana iga dhisa like tana commentigana wixii aad igu soo qori jirteen asxaabtana ugu soo qora marti waay martida la soo dhaweeyo Waa dhaxalka quray idu kuleenay bakhaylnimada alla yareede saas waay barnaamijku aan bilaabnaa let's go isla sida walaaluhu soo sheegeen waxyaabo aan la isweydiin baa jira waxyaabahaasi ninkuu sii jeeda iska saara waxay nii sheegeen wax weyn maaha hore ugu socda waxaan ku soconayaa mamahda koobaad diyaar midin horta yar we are ready haddaba qof kasta fursad baan siinayaa wuxuu sheegayaa mamahda goorma la isticmaalaa waqtigaagaad qaadan walaalka kale aad u tagin aan ku horeeyo mamahda koobaad waxay leedahay banaankiisa mare maradiisa geed ma qabsado maxaa laga wadaa DJ نعم من الصعود نعم واضح من مودي كرسنت نعم geeda laga hadla qodax maxaa dii waxaa لأن اللي مريض نعم طريقه اسكمر كلا نعم وحبوب مقبل دي كلا adu saasay kula tahay ra'yigiisa u daaya waxay kula tahay sidaasay kula muuqataa Macalin Cabdillaahi ku soco Okay. Nin banaankiisa maraba toy geed ma qaayna maradiisa geed ma qabsato. Soo saas ma. Okay. Aniga waxay leeyahay nin dib walba nin aan dib aan raadsanayn aba buuq baan raadsanayn hadii uu buuqa ka dheeraado wax bilaay qabsan mayso saasay la taaniyo ku soco Keenan macna banaankiisa maradiisa geed ma qabsato waxa waay nin miskiin oo meelahaas iska fadhiya cid badan daansan mayso waay macna hadda raggan waxay soo bixeen macna waay anima barnaamijkana waxay ahayd goormaalis waa gooraad qof u digaysid waay qof dagaal badan u digaysid adee waraa roowi banaankiisa marag macna digid waay kelmad xilli qof u digaysid aad u digay أنا وقف مصيبة كهلا ودب يوحى موضوعنا يلا جاوبت يقول عشان انك سفيه اوكي صحدي يا صحده ما هن قال ما كشغنا مسلم حد هي الباس يرد كرتاي قليلها waxa u dhow Macalin Cabdillaahi u dhow wuxuu ugu dhow yahayna waano iyo digniin intaba ana digniintii waanada iska kala qaaday lagu qaat xabda marka Cabdillaahi ba ku socday ku socono labaad waxay ku leedahay ku socono isla mamahda labaad xaqana ka soo bilaabanayna sida kan u soconayna Keenan baqal farda la daaqday digooda ismooda goorma la isticmaalaa ani hay macnayn mamahda waxa ka rabaa waqtigaas ku haboon tahay in la isticmaalo macna ani jawaabta ani ma bilaabo mamada waxa la isticmaalaa xilligaad nin rag u eeg aad u digaysid aleedahay matal hadda ninka DJ Cabdillaahi marka Keenan la joogto nin ragaas muudaniyo nin raga matiid waay saas waay dagaal wani bulatay ka dagaal kusa Kabuga ku socday waa kale ku jira iska daa macna qaata Soomaa Okay aniga macnaheedu waxay la tahay baqal la daaqday fardo digeeda ismooda Soomaa marka aniga goorta la isticmaalayo waxay ila eeg tahay
waxaad arkaysaa nin walaalkaa oo ah ilaahay de wax yar dadka ilaahay baa bixiyaba inta badan iyo inta yar soo maaha markaa nin ilaahay siiyey wax yar oo xoolihiisi aana nidaamsanayn oo doonaya inuu la dhaqmo walaalihiisa ilaahay wax fiican siiyey wixiisii ku fangaranaya waxaad oran kartaa war waxaaga intaad daadaadinaysi adigu dee raggaa gaari maysi ee intaada soco markaad qof aad leedahay tallaabadaada soco dadkaa horeeya ku dayan waad iska gaari doontaa laakiin tan ilaahay ku siiyey intaa ku qanacsano oo soco saasay leedahay DJ maxay baqal farda la daaqday digowgiis moodaa nacam dee libaax de maaragtay libaaxyo badan oo ku dhex jira dee maaragtay ku dhex jiro muxuu ahaa ku dhex jirto waraab ku dhex jiro libaax ismoodaya libaax ismoodaya saas weya sidaas weya waxa ku sax jawaabiisa adigu su'aal waxaa lagu xilligeed isticmaalay xaalad ka soo sameeyo aniga dhexdiisa ayuu ku dhaweeyay taimka la isticmaalo waa goormo waaye hadda matalan xilliga la isticmaala hadii libaaxa ku booday anaa iga hadlay marka sameeyo maxay nijacayna ana wada ka gari lahayd أنا يحب له مرك من الدجال يجرتو dagaal jiro دجال مرة يجرتو هي كلمة صوب حسن نعم قف كل كيرلاي نعم قف كل كيرلاي ismoodi sama lagu leeyahay okay hadda saxdii iyo qaladku ma sheeganay sheego yaa ugu dhawaa okay intii ugu dhawaa عزو 4.5 ما sheeg saylee muuqato qof kasta ma ninka Cabdillah uu yir dhawaa laakiin wax siban uga yar dhacay ninka Cabdillah uu Cabdillah nigu odeysay inuu mar dhaxdii waxaan moodin barnaamijka dhan ka dhacay ma ku sheekinay lacag iyo fadlan oo kale ana waxa islaamaa ninka barnaamijku ka dhacay hadaba xaaladda la isticmaalayo in sheego waxa la isticmaalayaa waa sida hadda ila muuqato saxda ma saxda markasta ninka ay ku xiran qofku markuu iska dhigayo wuxuu ahayn oo iska dhigayo xaalad kale uu isugu ahayn ayaa lagu joojiyaa la dhahaa baqal farda la daaqday digeed bismillah san ka hadlay waayo waa xaalad waxaan laga rabaa markasta inaad xaalad ay sheegtaan nin hay sheegin libaax hay sheegina waxaad ay sheegtaan xaalad la isticmaalo ana iska hadlay oo anu yiri labadeedan ninkana mar labaad iga hadlay yiri libaax Cabdillah uu dhawaa waxaan example wuxuu soo qaatay qof baan ku soo qaatay qof iyo libaaxiga day xaalad ay sheega xaalad abuura oo ah sida qof isku dhigayo wuxuu ahayn yaa loo isticmaalaa hal lagu socdo ka rogo saar hadda baan bilaabi doonaa okay ha ku soconta saddexaad imika waxa ka bilaabi doonaa dhexda ninka dhexda bilaabi doonaa asay ku socota waxay ku leedahay isla maahdu waxay ku leedahay barasho horteed haynicin goorma la isticmaalaa barasho horteed haynicin soo maha barasho horteed haynicin maxaa loo isticmaalaa xaalad marka aad ku jirti qof xaalad maxaad markaad ku jirti inaad qof isku micnaysi amba dee inuu qofku aad maqa xaalad qofku markuu khalad kaa sheego isagoo garanay ciddaa tahay ayaad leedahay wax iga sheegi maysi dee adigoonay garanayn cidda aan ahay baro horta baro intaanad wax iga sheegi ku soco DJ نعم سؤال شو سيدا تاي برشور تدينين برشور تدينين مركا وعن كنت المام كرنا وأورا كرنا يقف ده وزجرنا سيب ده واحد سكبر التيم بس هل جوا كمان جوا والله كوسع قف كذا ها قف زجرنا سيب زجرنا سيب لما حكون عاجرين كوسع كينا برشور تدينين أنا دينين رابيان marka waa booto waay waraa ay igu soo degdegin camal waay ima taqaanidi wad baranaya ayr soo waay barasho horteed haynicin ana waxa ima waxa la isticmaalaa qof markuu ku degdego waxa ahayn ka sheego yaad oranaysaa walaal waa degdegaysaa barasho horteed haynicin ayr soo
saxda iyo qaladka san hore usoo sheegnay qofay ku xidhan tahay iminka waxay ila tahay labadan way hayaan finance ayaan u badinay finance ayaa tahay oo waa booto oo kale yani qofkii wuxuu kaa aaminay waxaan lahayn waxaad hayn kaamil saad ugu soo gaabisay warkii macnayn badan iyo sharaxaad ka dib ma baahna waxaan leedahay walaal waad degdegaysaa barshoorteeda ay nicin cabdillahi hadda sidoo kale waa saxad ku dhaweyd دوايات باش الاسعار اللي والله ما سعر وحيات بوينتي baan ku qaaday xagadaas ha ku socono garabasaan waxaan joognaa isla maamaahda afraad waxay ku leedahay arqoyi dacwal muda maxaa laga wadaa goormaa la isticmaalaa goormaad ereygaa isticmaali kartaa maamaahda yaad ka bilaabaysaa hadda macallin waxaan ka bilaabaynaa dj arqoyi زي marka waa shufay waa iga wareejo ayaa dj ugu dambe waa shufay ay waayo aniga ka bilaabo ku soco war arqoyi waxaa la isticmaalaa waqtiyo qof ay ka jiifto aad aragtid ayaa macnaha waa igambi hadalka dhan baa igu qaata waxaa la isticmaalaa waqtiyo qof dee yar daciifoobay aad aragtid yaad oran qof kale ku diganayo aadaas aniyo arqoy dacwal moodi ninkan adoo dacwo haysta hal mar ku oranaya ku oran karaa dili karaa ku soco cabdillahi aniga waxay ila tahay xaaladda la isticmaali karo arqoy dacwo ayaa la moodaa waxay ila tahay marxalad qofku markuu ku sugan yahay xaaladaas markay xaalad sidii loo micneynayay baa iga khaldan hadalkan saxada igu qaata waxaan oran karaa anigu ila tahay qof haddii aan u isticmaalana taas waa laga diiday xaalad abuur xaaladaas waxaa la oran karaa maxaa la fikirtaa imtixaan wiil laga maray waaxid tiri talaata kaga shaqeey waaxid tiri talaata walaal maxamed ugu shaqeysin 1 2 3 waxaan rabaa hadii la rabay in loo sheegar halkii la rabay in aan dhigo okay waqtigu u qaaya la soco waqtigu u qaaya لا وقت يجي for example tusaale ma ka dhiganay aan tusaale ku soo qaadanay igu qaatan wajadi isku waalade oo cawlan oo ilaahay de maad aragtay de waxba siin oo halka miskiin oo halkaas ka fadhiyo wadiija ka kari weynade wadiija ka kari weynade markaas oo kale waxaan dhihi karaa warniyo arqoy dacwo la mudaay ku degdeg ninkan jaddi baa la yiraahdaa laba jeer lugtiisa gacan camal dhac kugu siin maad aragtay warku waa saxan yahay laba feerood baad ka jabiyay ayr ninka ka istaag marxalad miskiin yar oo dabshaan oo isku doonaya de qof maad aragtay la garanayo inuu weyn yahay oo isagu waa arkay dabshaan inuu yahay buu arkaya laakiin dadku way garanayaan inuu dabshaan yahay ninkan marka waxaad leedahay adeer arqoy dacwo la mudaay ka istaag ku socdiisi اوكي انا waxa oran lahaa anu inkastoo isku buuqinayn nacam ninkan dhowr joor buu maaragtay waxyaalo badan soo arkay warsiidaba marka nacam anu waxa oran lahaa nacam nin maal qaban ha oo wax la ku dhacday ayuu nin kale wax haysto ku taagtay nin kale wax haysto ku taagtay marka dad kale u sheegay oo ninkan ba waxa ku taaganaysidba hantida awal buu lahaay inaan ninka ku taagto laga fiican yahay anu su'aasha aan shay baa saxiibashan iyo ديجي ku taagan yahay ama ka diiday objection veto أنا صومالي يسوي فيلم أنا واحد جدا إنه يدرسوا مركز تعرف أبوان واسق جريس لما لها عاد وقوق هذا أصلاً سو sheegnayba waxa ku saxsanaa isla DJ oo example qurux badan ka bixiyay oo ahaa nin markii hore maal qabeen ahaa oo danto ay ku seexatay ama ka jeebsatay nin kalena ku dayay xaaladaas oo kale ayaa la dhihi karaa libax qoyi dacwo la moodaa example kaas ku qaatay adduunka ugu qurux badnaa la bixiyay aniga afsoomaal hadda ma barana marka dad cusub afsoomaal hadda barto war dadka jid Soomaaliya ay sax waxa uu macnaana midna kay Eritrean afsoomaal niga garanay waa ceeb أصحابي لك بعدين دول هل إبر واي هل إبر كنا فاضي غير سريع هي نقول
أبو سعنا هذا أبو سعنا واحد ودقال كلا أبو سعنا ما هذا واحد كسعنا ما هذا الشناد أو كله بعد نمان لهين بأكبر يسطا قرما لإستعماله يا بعد نمان لهين بأكبر يسطا ما أقولي مقالي بوساني معنى كريم بعد نمان لهين بكل سطامية بعد نمان لهين يا أكبر يسطا بأكبر يسطا قرما لإستعماله كرا ما شاء الله والله انا كجواب كسع دي انا كجوابي أي والله يقول قبسنا بالمركز كجواب والله قيل دراعي Soomaaliya kaga jawaab laakiin Afrikaan kaga jawaab afafahmi marka kana tunqulu sanadeen ma meeshu saaxiibeen guru garaano xigil ku socay marka maxaa tiri u socday بعد نمان لهين بأكبر بعد نمان لهين أي أكبر يسطا jaynes buu fahmay wallahi baahini aan lahayn bay garan بعد baadi nacab qof waa shay oo la doonayo ma ku joog garnay صعب هو شيء ما waxaan ku qasnay waxay tahay bilaa sida loo xajinay iyo oh my god waa ku soo abdillah ku soo بعد nin aan lahayn ay akbar isata waan isku eegay magan inkastoo af Soomaaliga macna ay fariiqay ilmiso macnaheedu ka dhiganaa kala lagu qoro wada buug xasuus qarta ay hay ko بعد nin aan lahayn ba akbar isata akbar isata example as aan iska soo qaata la ogolaado ku socay waxba ka lumay nirig aday noqoto amba qof caruur oo leedahay oo ka lumay qof aanan lahayn uma la helay oo ku haynay صح oo la joogaysa mar dambe raadis farbadan la bilaabay ama qofka kule uu yiraahdo wixii baadidaasan hele ayaa la yiraahdo Soomaa xiligaas ma soo gaadhay laakiin waxa ku nasanaysaa waqtiisa ahaan doonta qofkii baahida soo gaadhay oo lahayn ay وحجنا لأن الصدق قف كيلا هاو صدق ساس يقول بريسانيسا ساس هاي سيدا نعناع حالات قف وحيقلوا مان وقف أن هين ويسوق قاعد نيو كذا ay ku socod هنا waxaan macnana sida qaabka DJ markii ay معناه يبان معناه يبان horta ma maadan caawa igu horeysa ko laakiin waqtiyada la isticmaalo waxay tahay wallahi ma hayba isagoo wareeg doona meesha uu leeyahay hadda wax siida meesha madaxa u fadhiya madaxa ma shaqeeya laga sheekayna qof baalan maxaa keenay la ilaha illallah qof baalan maxaa keenay warbaahin nin aan lahayn bi akbar isata بعد نمان لهين بأكبر يسطا akbar isata sax ها waxa weeyaan baadi macnaha baadi wax ka sorto baadi ama xoolaha wax xafad kale seexdaan macnaha nin aan lahayn bi garab seexatay waxa ma warun fahmina sheekada ku socono بعد نمان لهين بأكبر يسطا بس labadana sax صح waa lagu wada jiraa waa lagu wada jiraa baadi ku daraa deeqada lagu jiraa wax ayaa sax ya u dhow ana igu soo celiyo waxaad raadeen la ilaha